dadweynaha ku kala dhaqan degmada Lughaya gargaara bari iyo sidoo kale magaalada Garbadadar ayaa waxa ay hambalyo iyo bogaadin iyo duco iskugu jirta u direen madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici iyagoona eebba uga baryay inuu Ilaahay ku asturo xilkan culus ee u qaadeen guud ahaan shacbiga ku dhaqan Soomaaliland iyagoona muujiyay sida ay ugu faraxsan yihiin wiisha uu ku guuleystay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici hambalyada ay u diriyeen dadweynahan ku kala dhaqan degmooyinkan soo sheegay ayaa waxa isagu halkaasi kala qayb qaatay gudoomiyaha da'da yar ee golaha deegaanka ee degmada Lughaya iyagoo arrimahaas ka hadlayna waxay raadeen guuleysatay Soomaaliland waxaynu gaadhnay guushii ugu weynay waxaynu soo galay doorasho dimuqraadi ah doorasho cadaalad ah doorasho allaaruush iyo hayb midna lahayn ee si dimuqraadiyada u dhacday oo caalamku ogyahay inana ay ogyahay soo galay waa idin hambalyeynayna Ilaahay ha idin gargaaro xilka aad qaadeen Allah idinku garab galo waxaan leenahay xilka wajribaale oo aan noqon leenahay iyo ummadan faxaan noqon leenahay iyo xasimada iyo qabyaalada iyo xasimada aan noqon leenahay waan Ilaahay waxaan ka baryaynaa Ilaahay ku asturo xilkaasi waxa weeye madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Saylici Ilaahay ku asturo leenahay madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici hambalyo Ilaahay ha idin la qabto xilka weyn ee aad qabateen waxaan kala baaq u dirayaa Soomaaliland dhammaan Soomaali baaq baan u dirayaa walaalahayo nimcada iyo nabadda aan hayno laynalama hayo walaalaha gafina Ilaahayna ugu shukrinaqa hay isu ciyaarno dhibaatada inaga daaya kamaanta way bari u helaya waxaan halkan ka hambalyeeynaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylici ku-xigeenkiisa waxaan leenahay madaxweynaha ha noolaado madaxweyne ku-xigeenkuna ha noolaado madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee u hambalyeynayno iyo salaamaya madaxweyne ku-xigeenka Cabdilaahi Raxmaan Saylici yaan u hambalyeynayna Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici waxaan Ilaahay u weydiinaynaa muddada ay xilka hayaan inuu Ilaahay ku asturo oo si wanaagsan oo sharaf iyo karaamo leh ay waqtigooda ku dhameystaan alloo duceeyo waxa maanta fuushan culays weyn ummadda joogta loo yacado iyo ilaa iyo meesha la yiraahdo laascaanood ummadda intaa u dhaxaysa iyo mas'uuliyadoodu ay xalay toolo fuushay marka Allah u fududeeyo waxa aan tahniyad iyo hambalyo ballaaran u dirayaa dhammaan xisbiga kulmiye meeshu doon ha joogay asxaabtiisa faraha badan leh mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan u dirayaa madaxweynaha ku guuleystay cod bixintii dhacday 13kii bisha 11aad iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Allah haynagu asturo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaadba waxaan ugu hambalyeeynaa aniga oo ku hadlaya afka degmada Garbadadar waxaan hambalyo u direynaa madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo doorashadii ka dhacday 13kii bishan ka soo hooyay guulo waaweyn waxaan hambalyo aad u sareyso u direynaa anoo ku hadlaya codka macallimiinta Soomaaliland oo dhan dhamaanteed ku hadlaya aan u direynaa waxaan leenahay kulmiye dulka maalati anta kiisil haybati kulmiye dulka maalati anta kiisil haybati kaafil aytaan bixusna raayatillah ki agoomaa korin jiray isagoo aan lahayn halaga sheego bahiyal waji bashaashal kalaam sayidi ki wajigiisu furaa bahiyal waji bashaashal kalaam kuwii hadalka dadka deeqsiinaya wajigoodu ahaa sida cadceeda waag markuu soo bariyo kale kaafil aytaan bixusna raayatillah kuwii agoomaa korin jiray iyagoo aan lahayn halaga sheego marka kulmiye dulka maalati anta kiisil haybati kaafil aytaan bixusna raayatillah bahiyal waji bashaashal kalaam sayidi tixdaas ayaan ku soo dhaweynaynaa hambalyada maanta وعلي أحمد ديريه ورركة أريال TV مقالة